daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo TV-ga caalamiga ee Somalisat TV idinka diyaariyay xaaladda ay ku sugan yihiin kumayaal qoys oo ay abaaraha ka jira deegaanada degmooyinka gobolka Awdal ay soo barakiciyeen isla markaana u soo hayaamay meelaha tuulooyinka ee ay door bideen inay nolol ka heli karaan meelahaasi ay soo haybsadeen dadka barakacayaashu oo sida ka muuqata aan nolol ahaan dhaamin xaaladda haysata dadkaasi barakacayaasha ah deegaanka gargaara waxay u jirtaa magaalada Lughaya 40 kiiloomitir waxaana ka jira kaamka ugu ballaadhan ee ay degan yihiin dadka ku soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada gobolka Awdal muuqaalada halkan ka muuqda waa dadka soo barakacay ee abaaruhu ka farabixiyeen xoolihii ay dhaqanayeen haddaba iyadoo marka horeba dadkaasi barakacayaasha ay xaaladooda nololeed ahayd mid aad u adag isla markaasina ay u badnaayeen xoolo dhaqato reer guuraaya waxay muddo ku dhow 4 sano ay waayeen roobabkii deegaanadaasi ka di'i jiray xilliyada guga iyo xayska dayrta dadkaasi waxa ka muuqda jidhkooda ama ogadooda sare nafaqa darro iyo diif aad u daran dadkaasi maalinba maalinta ka dambaysa way soo kordhayaan barakacoogu mana helin gargaarkii ay u baahnaayeen marka laga reebo deeqa ay bilowgii ka heleen qurba joogga ka soo jeeda gobolka Awdal ee degan dalalka dibadda iyo hay'ado maxalli ah ilaa ay hadda ma helin gurmad dawladeed gaar ahaan dhanka xukuumadda Somaliland leedaanta ka soo yeedhaysa dadkan ayaa ah mid u baahan jawaabteeda oo ah deeq la gaarsiiyo balaan dhageysano qaar ka mid ah barakacayaashaasi ku nool deegaanka gargaara ee degmada Lughaya oo ka warramaya xaaladooda nololeed ee waqtigan ay ku sugan yihiin halkani waa gargaara bari waa magaalad aanan da'weyn 59 sano iyo magaalo ahayd magaceedana waxa la yiraahdaa aniga kula hadlayo Umar Ismaan Faarax Diiriye markaan inta ka sii gudbo dadkani uma baahna maanta waraysi waxa kaliya u baahan yihiin arag iyo waxtar fulada quraan ka soo guuday baydkaygina raaray ku yaala midda kale baahi baan keentay waa soo barakaanay ilaa kale nama wado waa sida kale iskaga barakaysanay laakiin baahi oo guri iyo togaajada diirkaygana uu naga dhamaaday dadnimo kale oo dhib oo kalena ma qabno laakiin waqtigan haystay aan dhibtiisa qabnaa halkaana keenina soo barakayay abaare wax kale oo dhib oo kale walaal ku sheegay ma jirtee sidaas aan u barakaysanahay laawun baan qabnaa dad meel ka soo wada qaxaan oo meel dheer kale iman baana isku meel uuna wallahi boorlaan anagu ka niminay dadalka iska joogaan inuu dar waxaan guriga un bay ku dhamaaday geelana de xanuunka gaajo iyo xanuunba xoolaha dawe taantu gaajada un bay ka kacday geel yaariba dadka de xoolo sida uga madheen baana sida baan qabnaa dhibaatada la waramay un baan qabnaa dad isku meel un baana dadwaa kama kaleeni tawaanaga cadaankan aan biyo ku soo qaadanay waan weynay dameerna Allah ka yeelay bacbacda baan dhabarka ku soo qaadanay biyaasan de ku soo urursanoon ubadka kula soo tuudanay waana ka halkaas aan de joognaa magaalada gargaara waa ka dhibaatada isku beela un baana meel dheer baan ka soo intay kawdheer waa geesdeer kawdheer waa halkeere buurmada waaba intaan un gargaarin boo ka cadeedan dadkii yaal ee bartu kaga dhamaatay la fiibartu yaalaan weey xoolo yaalaan iftooda yaaluun baa ka niminaa meel dheer baan ka nimin xamada ka warwaramay qolowga soo raacay dabeera soo raran iyo awra soo raran midna waan weyn hadii alla yaraa awal bada halka ma oolayna waa tan cayrina keentay waxa nagu tarta dawladda nagu taan halka joognaaba bacadna qaad intaan halka joognaaba bacadna qaada soo dawladda Soomaaliya hadayna caawinaysa degdega noo soo gaadho waxa kale la weydiin waa awal bangeedkan gabagoobiga fadhiyay geel ma ari male dadkayagi ugu kala wiilada waxana waa kuwa kor waxa noo dhisay waa baco tuurta la noogu soo qaado awr waan weyno dameer waan weyn waan maalo waxa mudano midna male raqdiisi waa kala inay tusayada arkaysi ya urta madow hoosteeda meesha bay caraadad leedana ku ceyroognay ba meel ka yimaadaba ya adduunyo way naga dhamaatay raqdiisi wuu batay ayr baana keentay caruurta goor cadays ugu dambaysay lama garto
يا واحد كان أول بما من عير بانا كنتي عير يانا كنتي ما همد indhaha laga qarsan kara xaaladani waxaana qofka raba xogta dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi ku qaadanaysaa inay ku gaadho in ka badan 10 saacadood oo sii dhex jeexayo ama sii dhex soconayo dhul buuraley iyo qorfa ah dadkaasi markaad istiraahdo warayso xaaladooda nololeed waxay ku sheegayaan inay sabool noqdeen ama se cayd isla markaasina ay u baahan yihiin gargaar iyo kaalmo lala soo gaadho ma haystaan hoy ma haystaan agab kale ma helayaan cunto iyo biyo marka laga reebo qoysas tiro kooban oo ay hay'aduhu siiyaan raashin 3 bilood ah tirada kolba kordhaysa waxay keentay in barakacayaashaasi noqdaan qaar noloshoodu noqoto kuwo ku nool istulsaar ama se qoyska kale ku tiirsan yahay dadka waxgaradka ah ee degan deegaanka gargaara ee barakacayaashu ku sugan yihiin ayaa iyagu ka warramay xaaladda dadka ku soo barakacay deegaanadooda waxa weeye dadkan meesha jooga anigu dadka tuulada meeya dadka shicibka beeshaanahay dadka abaartu si ballaaran ma u saamaysay halkaa waxaa teeb ka gaadhsii halkaa beeya canaadad ka gaadhsii halkaa damasha mari halkaa haddabadhe low cas ka gaadhsii cabdigeedi ka gaadhsii gurka geelu ka goojay halkaa usoo mari gargaara ilaa osali dhulka ugu sii xun abaartu waa intaa halkan waxaa malaa 300 oo qoys iyo imika ku soo dadkii soo barakacay ee kolkuu wax ugu cuna waayay iyo wuxuu qaaday wixiisiina dhammaaday biyaha iyo tuulada ku soo tukuday dadkaas kolkaa muur ma haysto ari ma jiro dameeri ma jirto biyo ku qaata way dhimatay awr ma jiro dee dadkii kolkaa waxa weeye waxba bacyar iyo killi yar wuxuu qaaday karuu biyaha dee kolomela lakaa urqooda ku dee magaalada wax uga yimaadiina ku kasta waaleeya dawladba sidaa wada ku dhowey waxay ka yimaadeen haddaan intaana ku darno meesha ugu dheeray ka soo guureen waa 12 kiiloomitir ilaa 20 kiiloomitir 8 kiiloomitir oo afarta qiblaba ah waxay hayeeni waa kuwa ka muuqda sida ay yihiin meydkii xoolaha hadday geel tahay hadday ari tahay hadday dameer tahay waad arki kartaan marka ay sidaa tahay dadkani waxa kaliya haatay u baahan inay sheegay waa gurmad degdeg ah heedaha caalamka gobolada dawladda Soomaaliland iyaan leenahay sida ugu dhaqso badan dadkaas hadday wax nagu seegayaan aan loo soo gaadho gobolka aan ka tirsanahay awdalna dhaliil xooga iyaan ka tirsanaynaa dadkaas intaas say noqonayeen intaas nooca ay intay noqonayeen oo dhawaan agnaalay dad ag yaallo kala nahay dad ag yaallo oo kale dad ka tirsan iskuma aragnaano hadday madax tahay iyo hadday mija tahayba dadkaasi kama qarsoonayn intaasoo canaana oo dhaliilana waan Allahu sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi wasallam kulli dadkan waxaan u baryay ilaahay inuu ilaahay kulli u soo gurmado ilaahay raxmad khayr qabto ilaahay dadkan soo gaarsiiyo habay kulli ilaahay un baa wax dhirgin kare kaafay karaya kulli tirada hadda gargaara ku sugan waa 300 qoys gargaara kaga soo reeyay wax baad kulli biyahana waad arkaysaan gargaara biyaha ay ka cabto oo dadkan biyaha maanta ay u dogan yihiin waad arkay ay gacmeed ka cabdaan وعيل قرنا وي بينا ما يستان يدو عيل كان كل ده waxaan hay-adda in kulli xukuumadda Soomaaliland ka codsanaya daanako awoodda Soomaaliland kulli waa la ogyahay awoodda gobol waa la ogyahay tadegmo waa la ogyahay annaku itaalkayga wuxuu noqday qayladaan inaan soo gaarsiino ummadda adduunweynaha iyo xukuumadda soo gaarsiino dadka dhibaatadiisa waxaan leeyahay waxa ninkani u soo sido waxay ku sugaan haddii aad wax kala weydiin sida ugu dhaqso badan aan loola soo gaadho haddii loola soo gaari waayo dee ninkii dhimashadiisa wax ka helaayay dhimashadooda ninkii wax ka helaayay isaga u taala waxaan saleeyahay aan la badbaadiyo ilaahay wax badbaadiyaan la badbaadiyo dadkaas damaraysa artahay waxa weeye walaalaha waxaan ka doonaynaa in dadka degdega loo soo fidiyo oo dawladdu Soomaaliland xil iska saarto oo mas'uulnimo iska saarto oo dawladdu walba shicibkeega ila dhaqaaliso kolka ku dhacaan yaa samafalkeedu abata meel kasta ka dirtaa dawaa wali oo wadaylay ya anagu dawaan soo gaarsiinada jiidaha ugu daran ayaa inta u dhaxaysa Bullaxaar ilaa Lawiyacado ama Geestiir oo halka ay ku kulmaan saddexda xad ee Itoobiya, Djibouti iyo Soomaaliland waa dhul ballaaran oo isugu jira banka la yiraahdo banka Geeriyaad iyo buuraleyda silsilada Golis dadka waxa hooy u ah oo ay cadceedda kulul ka harsadaan buural ka samaysan caleemaha engegay ee dhirta
goobahaasi hoyga ay ka samaysteen waxaa hoos jiifa ubadka yaryar iyo dadka da'da ah. Dadka intay taalku ku hadhay waxay raadiyaan biyo iyo xaabo iyo wixii ay cunto kuyuu u galaan marka ay deeqi timaado. dadka soo barakacay iyo kuwa loo soo barakacay isma dhaamaan. rajadii roobabka guga ee sanadkan ayaa iyagu la mid noqday sanadihii hore ee abaarta oo kale, waxaana waqtigan soo galay xilligii xagaaga oo ah xilliyada dhulkaasi looga soo xagaabaxo dhinaca oogada, waxaana ka dhacaya dabaylo qallalan. waxaa adag sida qofku ku helo biyo macaan oo uu cabo. deegaanka Gargaara waa meel u dhow durdurka la yidhaahdo Qabri Baxar, waxaana laga cabaa laaskacmeedyo kuwaas oo aan nadiif ahayn, waxaana mararka qaarkood ka dhasha xanuunada shubanka. dib aan ugu noqonno xaaladda hadallada dadka dhibaatada abaartu taabatay ee ku soo barakacay deegaanka Gargaara ee degmada Lughaya ee gobolkan Awdal. waa kaasi alla nala soo gaara annaga oo dawladda Soomaaliya ana soo gaadho hana caawiso. itaalka yagana wayniga arkayo maxaabad naga weydiinayso wax degdega walaalahay nala soo gaaro. Soomaaliya wax degdega nala soo gaaro waan dhimanaynaa oo carruurtii way dhimanaysaa. qaaq baa ka dhamaa wax degdega walaalahay nala soo gaaro. barnaamijkan aan ku eegaynay xaaladda dadka ku abaaraysan deegaanada gobolka Awdal, gaar ahaan kuwa ku soo barakacay deegaanka Gargaara ee degmada Lughaya. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. tani intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Haashim Sheekh Cumar Good oo idin leh sidaas iyo tusan.